intii aan murmaynay diyaaraddu tagtay khasaaraha gaadhay waa khasaare $2,000 gaadhaya dabcan markii ay hawshu adkaatay ee diyaaradii la iga diray waxay noqotay inaanu amaysa sii jiidano oo awoodo aniguna aan doonto deecid waxa weeye iga barbar dagaalanta kulan wacan oo wanaagsan waxa halkan igula sugan Khalid Cali Soodi oo kamid ah dhalinyarada reer Somaliland oo maanta waqti uu ka dhoofayay madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa waqti uu socday dalka Talyaaniga dib loo soo celiyay bal Khalid ayaynu weydiin doonaa sababta madaarka looga soo celiyay magacaygu waxa weeye waa injineer Khalid Cali Soodi waxaan kamid ahaa ardaydii wax ku soo baratay dalka Suudaan haddana waxbarasho heerka labaad ugu socdo dalka Talyaaniga saaka waxaan tagay airportka xilligii ku haboonaa ee loogu talagalay qofka doonaya inuu dhoofo oo wadan ka baxo iyadoo documentigayga oo dhami ay dhameystiran yihiin dabcan caqabado runtii aan markii koowaad ahayn baan kala kulmay airportka caqabada u weyn ma ahayn mid la xiriidha flightkaygii waxay ahayd caqabad ka timi immigrationku waxay igu khasbayeen oo ay iga doonayeen lacag runtii aan sharci ahayn oo ay iga doonayeen sifa aanan anigu markaa garanahayn waxay i weydiiyeen lacag $500 oo aanan garanayn meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto toona waxaan i weydiiyey Faisal Kaysan in la yiraahdo iyo ninka hooseeya oo la yiraahdo Cabdisamad labaduba de ma garanayo sabab waxa la igu sheegay inay yihiin taliyaha immigrationka iyo taliyaha ku-xigeenka immigrationka airportka dabcan niman ay de ka muuqata bay ahaayeen wajigooda marka la eego iyo physical appearance-gooda dad macquula oo odayaala laakiin haddana waxa ugu hooseeyay wax wanaagsan may ahayn mana aha markii u horeysay dhalinyarta sida waxa weeye loo weydiiyay lacag sharci darraa dabcan waxa sitay fiisa Yuruba waxaan u sheegay in aan arday ahay balse umay muuqeen ardaynimadeedii waxa u muuqatay Yurub inay lacag taalo una shaqo tagayo ama aan u tahriibiyo sida aynu ogsoonahay qofka immigrationka ama shaqada immigrationka airportka naqaana waxa weeye inay qofka interview weydiiso hadii ay qaab kale oo ay ku jeegarayn karto documentiga uu sitaana ay markaa waxa weeye ku jeegarayso interviewga markii la weydiiyay sidii ugu haboonayd ee ugu macquulsanayd baan uga jawaabay de runtana ahayd midka kale waxa weeye waxa uu Cabdisamad saaray fiisihi aan sitay intuu la soo baxay scan taleefankiisa ku jira ayuu saaray buu ma shaqeynayo oo fiisahaagi ma shaqeynayo dabcan de waynu garanaynaa fiisaha uu jeegaraynaya iyo qalabka uu ku jeegaraynaya toona waan garanayaa in aanu de wax standard oo loogu talagalay aanay ahayn waxaan u fahmay in ay isbaaro tahay meeshu markuu kuuri ma shaqeynayo adiga laftaadu inuu shaqeynayo inaanu shaqeynayn maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa anigu documentigaygu waxa weeye markii aan soo qaadanayay waxaan ka soo qaatay safaaradda dalka Talyaaniga ay ku leedahay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya documentigaygu maaha documenti la taswiirin karo ama laga been abuuran karayo hadii la cadeynayo de qaab loo cadeeya ayay leedahay waxaynu sameyn karaynay annaga iyo qolada immigration ko isku waafaqsani inaanu safaaradda email u diro kana xaqiijino waayahay madaarkii aad saaka ka dhoofisay waa lagu soo celiyay dib baad u soo noqotay maxaa adiga khasaare ku gaadhay maxaa xalas imaka waxa weeye calow khasaaraha laba tigidoo kala duwan baan goostay oo ii go'naa anigu waxa weeye arday baan hayo uma shaqo tageen 2 sano aan doonayay inaan ku maqnaado dabcan halkaan wax u soo baranayna halkan ay ahayd khasaaraha gaadhay waa khasaare $2,000 gaadhaya dabcan markii ay hawshu adkaatay ee diyaaradii la iga diray waxay noqotay inaanu amaysa sii jiidano oo awoodo aniguna aan doonto deecid waxa weeye iga barbar dagaalanta oo waxaygii ila raadisa isagiina markaa uu awood dawladnimo iyo shaarka uu xiran yahay uu adeegsado dabeeto waxa dhacday waxay noqotay inaan anigu ka labadayda kun khasaaraha aan madaxa ku qaato oo aan intii aan murmaynay diyaaradda tagtay
oo dabcan dee diyaaraddu waqtigeedu waxa weeye waa waqti go'an lagula sugi maayo. maxaa xalay marka xalku waxa weeye inaynu bulshada la wadaagno. dabcan anigu wixii soo gaadhay waa qaatay oo dee uga caban maayo, imika dhaqaalana ugama baahni, weydiinna maayo, laakiin waxaan doonayaa inaan bulshada la wadaago meesha waxa yaalla inaanay wax wanaagsan ahayn. goobtani waxa weeye goob loogu talagalay in bulshada loogu adeego, in aanay noqon checkpointi iyo meel istabahoo dadka lagu qabsado lacagna lagaga qaado. anigu waxaa laga yaabaa inaan isticmaali karayo qof reer somalilan baan ahay, waxaa laga yaabaa inaan xildhibaano leeyahay, waxaa laga yaabaa inaan wasiirra raadsan karayo, waxaa laga yaabaa cidi garanaysaa inay jirto oo aan heli karayo, aan si fudud ku heli karayo. laakiin waxaa jira kumanaan dhalinyar ah oo aan heli karayn intaa. marka maanta waxaan doonaynaa inaynu la wadaagno bulshada dadka halkaa jooga runtii dadkii ku munaasabka ahaa inaanay ahayn. markii arrintaasi dhacday qaybihii kala duwanaa ee madaarka, hadday maamulkii noqoto, hadday ciddii ka sarreysay noqoto, qoladan is qabsateen, cabasho ma la tagtay? waxay noqonaysay uun horta dokumentigaygii bay isku dayeen inay igaga dhagaan oo ay yidhaahaan dokumentigan waanu haysanaynaa. sababtoo ah dokumentigani ma aha dokumenti ay somalilan leedahay. baasaboorkan sita anigu waa baasaboor soomaaliya, baasaboorka somalilan waan haystaa, laakiin halkee lagu tegayaa baasaboorka somalilan? kuma tegi karayno dee Italy, waxbarashana kuma tegi karayo. anigu baasaboorkan dokumentigan waxaan sitay muddo ku siman ilaa 2017 waxaanan aaminsanahay dee baasaboorkani waa baasaboor ka dhexeeya somalilan iyo soomaaliya, ma aha baasaboor soomaaliya ay gaar u leedahay, haddii xitaa oo soomaalida ka dhexeeya. waxa weeye haddii aan maamulka la wadaagi lahaa dabcan isjiidadka unbaa fara badan lahaa. marka waxyaabaha aan anigu ka tanaasulay bay ka mid tahay. waxyaabaha kale marka baasaboorka laga imaado dokumentka kala sidatay ama ay isku haysateen maxaa ka mid ah? calow markii aan waxa weeye aanu dee muddo is haysanay ay iyaguna yaqiinsadeen in aanu baasaboorkan iyo dokumentigan fiisahan iyo waxaniba aanay been abuur ahayn, markii dambe waxay ku maraateen inay ka shakiyeen. dabcan waa mar ay iga tagtay diyaaraddii, waxay noqotay inaan iyagii dib loo maslaxo oo intaynu erga u diro aanu soo maslaxno aan idhaahno war waxa weeye naga raalli ahaada. taana waxaa keenayay dee xidigaha iyo garaadada uu ninku sito immigrationka ama maamulka markaa jeegka samaynayay. qofka imanka ku daawaday odhanaya suudi injineer suudi wuu eedeynayaa uun madaarka iyo meesha goobtan ka dhoofayay laga soo celiyay intii ay murmayay diyaaradda ka tagtay, maxaad arrintaas kaga difaacaysaa? waxaan iskaga difaacayaa calow eedaynta dee waxa weeye qofna qof meel cidlaa iska taagan ma eedeeyo. cadaymihii aan nimankaa ku eedeynayay baan hayaayo ay ugu horeysa iminka inaan airportkii ka imi halkanna aan kula joogo sabab la-aan. tigidkaygii inaan bedelo oo kale iminka tigidkaygii hore waa cancel. waxa weeye nin dhalinyaro baan ahay oo runtii wadanka aan muddo badan joogin xaqiiqatan, oo waxaan ahaa dhalinyartii marka horeba ka timi dalka Suudaan waxbarashada halkaa u joogtay. qorshahay waxa weeye jacayl wadanka aan jecelahay baa dee keenay marka horeba, laakiin waxay keenaysaa dhalinyar kale oo fara badan oo aniga ila midi oo halkan joogay iyo kuwa ka maqnaaba inay wadanka nacaan. dayrada ka jirta social mediaha ee faraha badan lama aaminsanayn, laakiin iminka waxay keenaysaa inaan dee aamino inta xukuumaddani jirto. waayahay aan wax laga qaban nidaamka halkaa ka talinayay nidaamyada kale runtii aan cadaaladda samaynayn. markaad weydiisay lacagtan xagga ay lagu suntayo maxaa lagu jawaabay? Faysal 2 jeerba 3 jeer lacagtii wuu weydiiyey, 3 jeer buu lacagtii weydiiyey $500. saddexda jeer uu weydiiyey mar wuxuu yidhi ninkan ganaaxa laga qaado oo may cayinayn, marna inan buu ii soo diray immigrationka oo wuxuu yidhi ninkaa $500 ka soo qaad hawshiisana u dhammee. marka saddexaadna oday weyn oo dee odayaasha airportka ah buu yidhi u dhiib $500 oo haddii aanu ku fasaxno ciladi ka timaado hawshaada ganaax bay noqonaysaa, haddii ciladi ka iman weydana waanu cunaynaa. marka lacagta halkaa waxa weeye
la iga qaadayay waa lacag uu ninkaasi dee awood ku qaadanayo awood ku urursanayay baan u arkayay cilada ka imanaysa ee uu shakiga ka muujinayo dokumentkaaga maxay tahay taasi waa mid aan xaqiijin karayo una iyagana aan ku hortaagnaa inaan xaqiijiyo cid walow waxa weeye dokumentigayga markaa aan isugu nimaadnana aan la wadaagi karayo oo aan ku xaqiijin karayo targetkaagu ama hadafkaagu halkuu ahaa halkaad u socotay jaamacadda u socotay teebay ahayd jaamacadaydu waxaa la yidhaahaa Florenza fakalka aan baranayna waxaa la yidhaahaa geoengineering markii hore waxaan soo bartay geology waxaan sidoo kale ku takhasusay petroleum imika masterkaygani waxa uu ahaa dalka Talyaaniga magaalada Florenza jaamacaddana waa aniga ku sheegay waxa la yidhaahaa Florenza University destination-kuna de Roma buu ahaa flight-ka hore ee ii go'naa wuxuu ahaa Hargeysa Dubai flight-ka labaad ee ii go'naana wuxuu ahaa Dubai Roma markaasaan Roma ka tegayay oo Florenza aan tegayay dabcan waxa lagu jiraa Christmas-kii oo waa xilligii ay gaaladu u dabaaldegi jirtay oo jaamacadii waxay ku jiraan gaab jaamacadda lafteedana online baan ku wadaayo imika aan ku dhigtaa waxay bilaabatay bishii 9/15 ka waa deeq waxbarasho aad xareysatay oo aad ku soo baxday waa scholarship dalka Talyaaniga